warar cusub ayaa ka soo baxaya xalka garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan FIFA ayaana cadaysay mowqifkeeda xaqiijisayna in Artan uusan ka qayb gali doonin tababarka iyo dhexdhexaadinta ciyaaraha koobka adduunka ee 2026 taasoo la xiriirta dalka ugalka Mareykanka. FIFA ayaa sheegtay inaysan faragelin ku sameyn habraacyada socdaalka iyo bixinta fiisaha maadaama arrimahaasi hoos yimaadaan awoodda dalka martigelinaya FIFA waxay sheegtay in sida tartamadii hore awoodda dalka martigelinaya ay leedahay go'aanka u dambeeya ee ku saabsan cidda la siinayo fiisaha iyo cidda loo ogolaanayo. taas macnaheedu waa in go'aan ku saabsan gelitaanka Cumar Cartan ee Mareykanka uu gacanta ugu jiro maamulka Mareykanka ee uuna ahayn FIFA. garsoore Cumar ayaa sheegay ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadka markii loo diiday gelitaanka Mareykanka sida ay xaqiijisay FIFA. Cumar ayaa sanadkii 2025 loo aqoonsaday garsooraha ugu wanaagsan Afrika ayaa kamid ah garsoorayaashii loo xulay inay dhexdhexaadiyaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya Mareykanka iyo Mexico. hase yeeshee markii uu ka soo degay magaalada Miami kadib safar uu uga yimid Istanbul, ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa baaritaan dheer ku sameeyay ugu dambeynna u diiday inuu galo dalka. sarkaal ka tirsan hay'adda Customs ilaalada iyo xuduudaha Mareykanka oo warramay warbaahinta CNN ayaa sheegay in Cumar loo arkay inuusan u qalmin gelitaanka Mareykanka kadib baaritaan amni si aysan faahfaahinin sababta rasmiga ah ee go'aankaas. Cartan waa xiddiga astaan u ah dadaalka shakhsi siduu u matali karo bulshada. xaaladiisu waxay u talowday Afrika iyo qaybo Carabta ka mid ah oo si adag uga dhiidhiyay iswaristaaga uu kala kulmay Mareykanka xilli uu shaqo rasmi ah halkaas u tegay. waxaa dhacay kuma koobna garsoore Cumar waa fariin ku socota qofka Soomaaliga ah looguna sheegayo qiimaha uu ku leeyahay dal sida Mareykanka oo kale ah. mana habboona in lagu ekaado xaaladda Cartan oo keliya lagana hadlo maalmo koob dabadeedna la iska ilaawo. muwaadinka Soomaaliga waxaa maanta hortaala in uu fahmo qiimaha uu dunida ka joogo soo ka hooseysa xariiqda marka ay Soomaalidu maanka bixinayso xaalad oo ay tiraahdo laanga qiimaha qofka muwaadinka Soomaaliga dunida ka joogo waa aadamo wasaqaysan oo la iska ilaaliyo bini'aadam si cadaalad ayaa Rabbi u sim balse ummadu iyada doorata sharaf iyo karaamada ay ku noolaanayso taas oo lagu gaaro in ay wax u hortidii ay qiimo u yeelan lahayd ummad la ixtiraamo. waa ummad leh dal dad qiyam iyo dowladnimo sharaf. gudaha Soomaaliya waa meel aysan cadaaladu ka jirin ee takoorka qabyaalad ay dadku buuxsheen. muxuu maanta qabiilku garoonka Miami uga gudbin waayay garsoore Cumar? dowladnimo sharaf waxay ka dhigtaa ummad sharaf leh. dowlad aan sharaf lahayn waa ummad aan sharaf lahayn. halkan inuu warbaahinta sarreeya Soomaaliya كالبحر قبيلكم آلة عصرية إيو علم لقو أديكتا أدو يدا لقاري